haatana Djibouti mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee ugu cadcad Djibouti ayaa sheegay in dawladda dalkaasi ay ka hor istaagtay isu soo bax shacab oo ay ku qaban lahaayeen xarunta golaha baarlamaanka. Xisbiga mucaaradka ee raad ayaa sheegay in talaabadaasi ay dawladda qaaday inay tahay mid ku xadgudbayso sharciga iyo dastuurka dalkaasi u yaala. Gudoomiyaha xisbiga raad Abdourahman TX ayaa cabashada ay qabaan uga warramay wariyaha BBC-da Faadimo Macalin Abukar. annagoo shuruucda dalka ilaalinayna iyo xeerasha iyo dastuurka waxaan ugu baaqnay bay ahayd ummadda reer Djibouti inay isku soo bax nabadaysan ay iskugu yimaadeen guriga baarlamaanka hortiisa iyagoo ka cabanaya nolosha ciriiriga daranyada iyo jallaanta iyagoo ka cabanaya oo u cabanaya xuquuqdooda lagu tumanayo iyo si doorashooyin xor oo xalaal ay dalka uga dhacaan. markaas nasiib darro warqadii aan xignay wasaaradda arrimaha gudaha ee ku ogeysiinaynay wasaaradda arrimaha guduhu way noo soo jawaabtay laakiin jawaabtaasi mid aan ku qanacsanahay maaha wayna baal martay shuruucda iyo dastuurka dalka u yaala waayo inay iyadu waa in loo ogeysiiyo laakiin inay mamnuucda maaha haddii ay mamnuucaysana waa inay macnayso waxa ay ku mamnuucdo. maxaad u malaynaysaa marka inay tahay sababta la idinkaga joojiyay? waa sharci darro weeyi waayo dastuur iyo sharcigu wuxuu dhigayaa in wasaaradda arrimaha loo ogeysiiyo marka inay diidan maaha waayo shacabka ayaa raba inay isku soo baxaan annaka u baaqnay markaas shacabkii baa la hor joogsaday oo loo diiday inay cabashadooda gudbiyaan. waxaan ognahay banaanbaxa iyo isku soo baxu inuu yahay waxyaabaha dastuuriya oo inay ku cabiri karaan fikirkooga. marka runtii waa nasiib darro weey halkaana waxa lagu tumtay sharcigii iyo dastuurkii. soo lagama yaabo in la idinku diiday iyadoo nabadgelyada la ilaalinayo? annagu waxaan nahay horta dad ixtiraamsan ogol dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala inkastuu talisku baal maray isku soo baxani sida warqadda aan ku qornay ee u tabinay wasaaradda arrimaha gudaha aan ku ogeysiinay isku soo bax nabadaysan ayaa warqadda ku qornay. marka waxay ahayd annaka iyo talisku inaan ka wada sheekaysano qaabkii uu si qurux badan banaanbaxaasi uu ugu dhici lahaa laakiin diidmadaasi waxa ay sheegaysaa taliskani inuunan ogolayn in shicibku uu soo bixi karo si nabada u soo bixi karo is-abaabuli karo fikirkiisa iyo cabashadiisana uu tabin karo waayo dastuurka ayaa sheegaya shuruucda dalka ayaa sheegaysa laakiin hadda diidmadaasi waxay caddaynaysaa inay ku tumanayaan sharcigii iyo dastuurkii. marka taas ma u sheegteen wasaaradda arrimaha gudaha oo marka la idin diiday kadib ma la xiriirteen? waxaan nahay horta dad sharciga yaqaana dastuurkana yaqaana ogolna xeerka annagu waxa weeye maadaama aan halkaas waxa aan kala kulanay waxaan u tabinay arrintaas shacabka reer Djibouti oon ogeysiinay inay arrintaasi sharci darro tahay loona diiday rabitaankoogii iyo dhiibashadii cabashadooda. waxa kaloon arrintaa aan ogeysiinay oon u tabinay ummadda reer Djibouti marka laga yimaado wadamada caalamka haddii ay tahay reer galbeedka haddii ay tahay ururka Afrika haddii ay tahay ururka Yurub haddii ay tahay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa oon ogeysiinay inay ku tumasho bareera ay tahay oo sharciga lagu tumanayo ummadda reer Djiboutina la caburinayo oo la cadaadinayo maadaama aan loo ogolayn xataa isku soo baxa nabadda. waxaan anagu warqadda ku qornay inaan anagu mas'uulan ka nahay nabadana aan dabarka taaranay taliskana aan rabnay in iyakana aan kala sheekaysano waayo way naga go'an tahay nabadda dalkayaga xasiloonida dalkayaga midnimada dalkayagu waayo dad ku adag baan nahay arrimahaas xasaasiga. hadda maxay tahay talaabada xigta aad qaadi doontaan? waan u hogaansanahay horta nabadda inaan ilaalino sharciga inaan ilaalino kala dambeynta ilaalino waayo waxaan nahay dad dastuurkooga iyo ummadooda aaminsan nabadda iyo xasiloonidana talisku ma haye shacabka reer Djibouti baa haya annaka hayna laakiin annakoo u hoggaansan waxaas ayaa waxaan sii wadi doonaa halganka nabadaysan ay ummadda reer Djibouti ku rabto in cabashadeeda ay ku gudbin karto rabitaankeegana ay ku bandhigi karto inkastoona loo diiday ma dhaafayna sharciga dastuurka dalkeega iyo shuruucda waan ogolahay waayo shuruucda iyo dastuurka cid gaari male shacabka ayaa leh marka insha Allah qaabkan uga degayno waxay noqon
noqon doontaa inaan halganka aan sii wadno si nabadana aan u wadno dadka midnimadiisa iyo hawlihii siyaasadeed ee rabitaanka ummadana halkii aan ka sii xoojino waxyaabo kale aan ugu baaqi doonaa ummadda reer Djibouti oo dhowraysa nabadda iyo midnimada laakiin hadda waqtiga la joogo ma shaacin karno oo waayo qaraarka aan yeeli doono weli ma nu qaadan kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga raad Abdourahman Maxamed Gelle oo u waramayay Faadimo Macalin Abukar dhanka dawladda Djibouti waan isku daynay inaan la xiriirno si aan wax uga weydiino eedeymaha xisbiga raad uu soo jeediyay balse nooma suurtagelin dhageystayaasha qodobkaasi bartina Facebook arahdooda noogu soo gudbiyeen waxaa kamid ah Faarax Bashiir oo jooga magaalada Garowe waxa uu leeyahay cawashada ka soo yeedhay mid kamid ah xisbiyada dalka Djibouti ee ka cabanaya dawladda dalkaasi waxa loo baahan yahay uu leeyahay in laga wada hadlo oo waxyaabaha oo xisbigu salugsan yahay laga qanciyo si looga baaqsado khilaaf si balaadho oo dalka wax u dhimi kara Cabdullaahi Jaamac Ogle oo jooga Burco waxa uu leeyahay xisbiyada mucaaradka ee Djibouti mid kamid ah ka cabanaya xukuumadda dalkaasi waan soo dhaweynayaa waxaana leeyahay dawladda Djibouti waa inaan markaasi dhowrtaan hanaanka iyo xorriyadda xisbiyada dalka waa mid looga baahan yahay dawladda Djibouti waana ka xumahay hanaanka dawladda Djibouti ay kula markaas tacaamusho xisbiyada halka dawladda nagala socotaan dhageystayaal waa BBC